iyadoo ay muddooyinkanba ku xaniibnaayeen xuduudka u dhaxeeya dalka Djibouti iyo Somaliland ee loo yaqaano lama deegaanka gaadiid aad u tiro badan oo kala ah gaadiidka xamuulka qaada iyo kuwa daabula rakaabka u kala goosha Somaliland iyo Djibouti iyo dadweyne aad u fara badan arrinkaasina ay sababtay markii uu xafiiska wasaaradda maaliyadda ee degmada Saylac cashuur kordhin ku sameeyay gaadiidka waaweyn iyo kuwa yaryar iyo rakaabkii halkaasi u kala gudbi lahaa saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha gobolka Salel oo arrinkaasi u kurgashay habeenkii xalay ayaa waxaanu kula kulanay dad iyagu ay ka muuqato dayacnaani isla markaasina qaarkood ay jiifeen darbiyada halka qaar kalena ay ka go'day masaariiftii ay ugu tala galeen in ay jidka ku maraan dadkan oo iskugu jiray iyo waayeel ayaa waxa noo suurta gashay in aanu la kulano waxayna yiraahdeen walaalow anaku horta kolkaan anaku iska hadal aas baan ku soconaa geeri baan gaadhaynaa ma karnaa nidhi walaalow intaan ku soo tala galnay waa taas hal naga qabta lacagtayadii waxaan sidanaa 600 oo faran marka waxay yiraahdeen ma dhici karayso iska noqdo dhacdadan lagu xayirayo gaadiidka iyo dadka rakaabka ah ee u kala gudba Djibouti iyo Somaliland ayaa waxay sababtay kacdoon iyo mudaharaad aad u ballaaran dadweynaha ku nool magaalada Lowyacado yar iyo weyn caruur iyo ciroole ayaa dhamaantood isa soo tubay wadooyinka magaalada waxayna ka cabanayeen cashuurta ay kordhisay wasaaradda maaliyadda isla markaasina waxay cambaareeyeen maamulka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay kastamka degmada Saylac erayada ay ku dhawaaqayeen dadkii iyagu halkaasi iskugu soo baxay ayaa waxa ka mid ahaa dollar qaate dooni mayno anagu malihin wax maxay ay tahay bacamishro meel naga soo daga malihin dakado malihin maaliyad kala meel naga timaada dariiqaasaan ku noolahay gaariga maraya dadka la socda baabuurtaasna anagu ku noolahay oo wax ka cunaa oo wax ka hela baabuurtii baa hunguriga loo joogsaday kii weynaa ku noolahay ummadii ilaahay dawladii anaga cid waxna tartaa ma jirto meel wax nooga yimaadaan ma jirto hay'ad waxna siisaa ma jirto cidna caawisaa ma jirto gaadiidkaasaan ku noolahay hadduu yar yahay hadduu weyn yahayba dumar iyo haween 20 iyo 30 waxa la yaalo waxa awlaad halka Lowyacado ku kortay waxa ay xaquudsadaan waa gaariga waa taayirka dariiqa maraya iyaan quudsana ummadu ay ku nooshahay waa safarka ummadii baa la dhibaya gaadiidkii baa la dhibaya ninka marka dariiqii lagu dhibo ee dawladiisii lagu dhibo baabuurka watay anagu maxaan ka dabaalaynaa maxaan ku naalaalaynaa naga dayso anagu meel kale wax kuma leeyin meel kale wax kuma cunno dekad ma leeyin wax nooga soo dagaan airport ma leeyin dawlad kale ma leeyin dawlad waxa la yaalo waxay la tartaa ma jirto waa taayirka dariiqa maraya waxaan ku noolahay waxaan ka codsanaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa taayirka dariiqa maraya inuu si nabad iyo ammaan u dariiqa loogu maro gaar ahaan waxaan la hadlaynaa wasiirka arrimaha gudaha waxaanu leenahay dadkan muwaadiniinta ee ku nool gobolka Salel waxaad u soo dirtay inay baayac mushtariga iyo dadkaanu ku noolnahay berbera geyso waxaanu la hadlaynaa gaar ahaan waxaanu ninkan haysta maanta la keenay kastamiska waxa way mahool baa ku soo diray oo madagadi berberaad ka socotaatay
صادرين وحنا دقمada sayla waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan la wasiirka arrimaha gudaha amniga waxaanu ka codsanaynaa inuu si degdeg ah noo soo gaaro gobolka Salal deesiiraya ma xukumo inaanu Djibouti naxakuntiinay Soomaaliland naxakunto doorta loo kala garanayno dad masaakiina oo la caawiyo ilaahay baa isku abuuray qaniga iyo saboolka qofkii qaniga ahaa دهذا الرباطية كنا شنو يسوون كريمة لكن كي جاتوني هذا ده هذا والبا وبيا تبكي بيني لا صديقة كراتون لاقي وحنو يا كو عدبن وحنو كعبنا الأمام الكل عصب يسيل عمد قلنا النبي قلنا حنبي وبرتلو اللي بدها بين كل أنا كنت سعون الليل أنا شنها بين الله يعدنا الله شنها بين الله سيلع شنها بين عشاء عدنا الله أيام كان لنا شنو تبقى عيشوا والله عجان ترين لو يدينا يا وشراعي الفرن لا وسيلع علامة برتلو يعد كل رجع سيلع عدنا كل رجع لا أيام كان لنا وحنا الله لنا وسير صادري إنه نكال لك سوق قالوا أيام دوننا ما أنا دقاقنا هذه لما بلوضة نشوقنا وانا ركعبنا لا وانا ركعيلنا وما ديودنا وكعيل سمعتني برتاس بي شيفتا dadkii oo caruurtiisa barta xalay saldhiga hortooda jiifa oo telefiga laga duubay marka dawladda waxaan uga cabanaynaa in kale laga soo gaadho رسابك قبل كسلل عبد الله فرح ميدان oo isla mar ahaanta ka soo galay dalka Djibouti ayaa isku dayay in uu joojiyo mudaharaadkaasi balse markii ay u suurtagali weyday in uu xal ka gaaro arrinkaasi siina balaaday mudaharaadkii ayaa waxa uu barasaabku si toos ah u soo weeraray saxaafadda oo ku sugnayd goobtaasi isagoo oo halkaasi waxyeelo ugu geystay qaar ka mid ah saxafiyiinta halkaasi ka howlgalaysay intaasi kadib waxa uu dib ugu laabtay barasaabku dalka Djibouti iyadoo oo ay weli sii soconayaan buuqii iyo rabshadihii ka socday magaalada Lowyacado si kastaba ha ahaatee mudaharaadkan oo socday ilaa iyo galinkii dambe ee maanta ayaa waxa dadweynahaasi xoog ku kaxeeyay ciidanka booliska oo uu horkacayo taliska qaybta gobolka Salal balse waxa aan weli xal laga gaarin arrimihii sababay kacdoonkan shacabka ku dhaqan magaalada Lowyacado waa Cali Xajar Somali Channel magaalada Lowyacado